madaxweynuhu ka ammaan la'aa ayaa nagu soo fakaday waa waxaan hor yaalla sita intii dhacday labada dhan ka dhacday ee foolxumo anba aflagaada ah ana raali gali ka wada bixinay hay dartii baan u nimid inaan walaalayno ka qayb qaadana nabadda tabliiqa nabadda labadeeda gudoomiye awdal istiid ma naqaano meel ay ku nooshahay ma naqaano anagu jamhuuriyadda Soomaaliland baana waxaanu markanahay waanu bari cadeynayna inay lagu hayo nabadii qaasay inaan wax dambe oo hadallo deeqaafay idaacadaha marinay ay jirin soo saama waxa weeji mar hadaad qaadateen oo nabadii qaadateena waan idin mahad celinaynaa idinkana bilaadanka ma ahna waxa u baahan xoolaha nabadda u baahan ninkii galay yiri iyo ninkii guuray yiri labadaba waxaan leenahay saakaalka warkoog ma yaalo warka lagu hayaala saaka waa nabad ilaahay wuxuu dhigay waa barwaaqada waxa maanta lagu cunay waxa yimiday barwaaqada degmada Luqayyi Siilac ka jirta dadkii maxadanay xoolihii Itoobiya ka yimiday min bari ilaa galbeed saaka waxaan la joogan degmada Luqayyi Siilac waxa halka ku yimaadeen nabad ka jirta iyo barwaaqa kaliya ma yimaadeen waxa ku yimaadeen waa nabadda dadna inoo iman maayaan inaguna waan ka kala tagaynaa hadii halka nabad ahaan weydo aan bulshada baa qalkan aan marinayaa intaan joogin nabad buu dadku qaatay ninkii afkiisa iska xumeeyayna isaga ku hadhay bulshada Luqayya horta nabad weey dhagaha way ka maqlaysaa waxa dhacaya iyo aflagaadooyinka dhagaha way ka maqlaysaa laakiin damiirka iyo caloosha ma gelin wax damiirka iyaga iyo calooshayada galay ma ahayn kuwa hadlay markay hadalka ka yimaadaan kuwii kale u tagayeen oo wada sheekaysanaayo maqaaxidana shaah laga wada cabayo war maxaad ku hadashay maxaad tiri war adi waa laga hadal ficilaa ayaa lagu kaftamay laakiin ma gelin damiirka iyaga iyo caloosha waad sadadaasheeno kolkay dhagihiinu wax maqleen haddaad soo gurmateen oo dadkiinni waxaan ka urayaay wax foolxun weeyaan hal la gaadha aad tidhaahdeen waa idinka guddoon yeer baad u timaadeen yeeraatiin waa idin yaalla war niman yahow dadkaasi waa dad nabadeed waa dad yacni caafimaad qaba war waxbaan ka cabanaa waxaana malaha wax kama qabataan dawladdu ay ka cabsootaan xataa Muuse bixi baad markuu mid ka xidhan adeecaduhu isaga ceebeeyaan ark wixii ina bixi ka ammaan la'aa ee madaxweynuhu ka ammaan la'aa ayaa nagu soo fakaday waa waxaan hor yaalla sita ayaa nagu soo fakaday niyo annagu dad caafimaad qabaan oo yeelistaan yaan u dhagan nugu leh hay'adaan u dhagan nugu leh war bal dhageysta hay'adaan u dhagan nugu leh sidaa imika aad u yeeraysaan ee nabaday naleediin unba yimaadaan oo iyagoo yeeraya la idin dhac la idin qaaday la idin weerar la idin rar ka kaca fadhiga kuwa kalena inta in leeg bay ku yiraahaan annana hay'adaan u dhagan nugu leh hay'ad maxaan sameeyaa de kaale hadal de marxaba waxa la wax ugu jiro cariin ma jiray kaale hadashan baan ku hadlaynaa waniya waxa dhagahno waxa dawladdu dib ha u eegto aba anaga nagu fasaxdo ki idin yimaadaba u leeyahay tiraahdo annagu jeelal malina waan u leenaynaa intii dhacday labada dhan raali gali ma ka bixinay intii dhacday labada dhan ka dhacday ee foolxumo anba aflagaada ah ana raali gali ka wada bixinay wax isla weeyo goor ku wada fadhiyada meel kale tagayaan ma jirto adduunada inta ku noolyihiin meel kale tagayaan ma jirto goor bay ku wada fadhiyaan hal bay wada maalaan shibay wada maalaan waa dad mid ah waxa weeye walaalayaal nabad baan aanu علموجي إلهينا هنوقو تانيلو إلهينا هنوقو تانيلو ورنبادات يباق بس دين واسع وضياش هوربا شيغان waa gudoonay kulay anagu higooda u balayna matagba naga noqotay yada raaliha laga noqdan leeyahay takale dhamaantiin walaalayaal waxa inoo dana waxa ilmaha u dana umusha u dana ilmaha u dana leeyay waxa weeyaan nabad waxa ka jecelnahay
oo maanta ay naga qaadan lahayn ma jirta saahidii u weynay wad noo keenteen horena waanu haynaa horta ku abshirda awdal steed wariya yaqaan awdal steed miya naqaana ma naqaana adeer awdal steed ma naqaano meel ay ku nooshahay ma naqaano anagu jamhuuriyadda Soomaaliland baana Soomaaliland adeer geel ayagii baa ku dhisannay calanka annaka le qarankana annaka le waxaan cid u daba joogsanayna maaha saluug hadduu yar dhacana dee sideedaan u dhammaysanayna wax aan colaad ku dhammaysanayno maaha Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato qarannimada Soomaaliland cid cadowga kuwaana waxaan leeyahay Ilaahay xaqa ku soo celiyo hadday gudaha tahay hadday dibadda tahayna dee adeer isma naqanahana deyso galbeed shacab weynaha Soomaaliland waxa uu sheegayaa waa nabad waa walaalo waa dad jira oo joogay walaalaha ay ducadu nagu dara waftiga ma taqaanaa nabadgelyada iyo ma taqaanaa hadalladii xanafta lahaa ee miidiyaha ka baxay gacan marintiisii wadana waa soo dhaweynaynaa nabadgelyadana waan kala shaqaynaynaa dawladda annagu kullayba inta itaalkayga kuwii ka shaqayn jiray baana imigana nabadgelyada waan kala shaqaynaynaa inta itaalkaya halkanna waa nabadgelyo wax alla wax dhibahoo taagani ma jirto ma ogolin wax wada dhashaanna wax ilaahay meel wada dhigaanna halkeen kala tagayna de waxaan u baa dadka kala eriyay wixii garaad xun waxa u baahlaynayo miidiyaha laakiin dadku meel ba kala tagay waa kii balaayo dhacday la ogaa meel la kala tagay waa kii la isku yimid waa kiinan iyo abtigiina noqday ya wax wada dhashaanna oo anu ninaan hay kolkaan iska soo qaado hooyaday macaan baaban aabbahay ka jecela naaskeegaan jaqay dhabarkay igu qaaday caloosha ii gelis way walacday ya sidaa iyo nabad baan ognahay wafdidana waan salaamayna shacibkaygana waan salaamana nabad baan isku ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintii maka la furtay ee maka la soo galay nabigu idgoon salawaatullaahi wasalaamu calayhi markii qaniimadii la soo qabsaday maartay maalintaas wuxuu qaybiyo wuxuu siiyay dadkii soo islaamay fuqaraaga ahaa ee dadkii diinta ku cusbaa marka qoladii ansaareed baa hoos ka guuxday kelmadda u fiirsada walaalahayo waa rixinkii wala dhalashada halkii taageenta markay hoos ka guuxay waxay dhaayeen tolkii hadalay tuureen waxay dhaayeen maanta nabigu tolkii buu helayo de tolkii buu qaybiyay nabigu arrintii uu ka xumaaday salawaatullaahi wasalaamu calayhi aad buu ka xumaaday uu jirkiisa madoobaaday cadad darteed mimbarku koro uu la hadlay wuxuu yiri waxaan doonay ansaaray gooni igu baxa ragii ansaareeday gooni igu baxa way shiraan oo gooni baa loo ururay wuxuu hadalka maaniga yiri nin ragga cuqaasha kamid ah wuxuu yiri hebelka hadalka waan maqlay maxaad aad u kala leedahay ku yiri de kulay ninku tolkii wuxuu yahay buu tolkii wuxuu yahay maana yaani hadalka halkay joogan ma ka joogaa buu haddaba dhageysta buu wuxuu yiri hadal kelmaddan uu socdo baata wuxuu yiri yaa nigu jira wuxuu yiri ansaar iyaa ku jira waxaan ansaarayn wiil gabadh dhashay baa nigu jiri warba dhageysa wiil gabadh dhashay kaasi nigu niga mid yahay buu billahi alaykum wal fiirsa hadalka inaka gabadh dhashay inaka abtiga wahay walaashay dhashay adeertay dhashay iyo inaka adeerka aanu ahay ee walaalkay dhalay waa inay isnaadaan rixin ahaan kana waa beerka ku sii yaalo markuu abtiku yiraahdo meel ba ku dabqanays billahi alaykum horta taa ogaada wuxuu ka mid yahay ansaarta maadaama ina ansaarta ka mid dhashay marka barakallahu fiikum waxaan ilaahay walaalahayo abti iyo adeer dadka joogo war mid quraatihiin ilaahay waxaad ka baridaan xumaantii xiqdiga caloosha hariya inuu ilaahay cidda ay ku jirto Allah ilaahay naga dhaaf hay naga saamaxay naga safeeyo walaalnimada iyo wadajirka taa hal lagu sugnaado walaalnimadaasi haynoo ahaato inaana waxa lagu kala tagin doqori meel lagu kaftamay ilaa uu kala tagay moodaa ninkii waxa garaadkiisa ku soo hadhan yahay ilaahay ka masaxo saasaan leenahay ilaahay qulubteena hamidayo ilaahay sabada iyo arlada ilaahay nabadgelyaha inaga siiyo wixii waxa wadana ilaahay tawfiiqda ha waafajiyo aqliga ilaahay u soo celiyo halkan maanta joogno waa degmadii Luqaya tabliiqi nabadda soo gaaray madaxdii soo aasaastay dhammaantood way joogaan oo waanu mahad celinaynaa gobol kasta joogaan iyo jan iyo ku kasta yihiin iyaga soo aasaasay oo u horeeyo baraad saabka gobolka awdal sidaad ugu mahad celiseen ma nugu soo mahad celinay waxa weeji mar haddaad qaadateen ood nabadii qaadateenna waan idin mahad celinaynaa idinkana waana ma hadhin
waano ma hadhin dhulkana ilaahay baa inagu filaysiiyey xabaalaheenna guryaheenna beeraheenna xoolaheenna ilaahay baa hore u sheegay inuu ummadda ilaahay dhulka ku filaysiiyey waa inagu filan yahay waxaanu mara ka nahay waanu bari cadeynaynaa inay lughaya nabadii qaadatay inaan wax dambe oo hadallo deelqaafa idaacadaha marinaya ay jirin waa soo saama wax dambe oo idaacadaha ka hadlaya oo wax deelqaafa marinaya inay jirin baanu mara ka nahay labada gudoomiyaha gobolka Awdal iyo gudoomiyaha gobolka Salal oo iyaguna goobjooga oo kulay intooda oran doona waxaanu saaka garanay amaan aragnay wax fiican baanu ilaa xalay ilaa shalay ka arkaynaa magaalada waxaan leenahay ilaahay sidaa idiga dhigo amiin sidaa ay idigu socotana ku socoto dadka dhagahoodana hadilina wax dambe yaan la maqli waftigeegan hadii marka inta laga dhaco warbixintiisa aanu daadego waxaan ugu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Awdal gudoomiye Xasan Ciid marka laga tago chief caaqilka laba kaar buu sitay isagu halka anigu hal kaar ka sito oo gudoomiyowna intaas uu isagu dheer yahay marka tabliiqan nabadeed baanu hayn socodka waxa laga soo bilaabay boon haatan waxaan ku joognaa Lughaya oo la sii socon doona ilaa inta laga gaarayo lagu noqonayo goboladii marka sharaf bay noo tahay waxaan idin kala kulanay wax wanaagsan waa wixii la idinku yaqaanay waa inaan yaabjigi waana intii Lughaya walba lagu sheegay intii meelaha media ka baxdayna waxa noo sheegteen inay idigu tala gelin wax la idin la soo doontay lahayd marka taana waa hadalkii waa cadeystay waa kala ergreyseen ninka dambe waxa idin leeyahay waxa jira warbalaayada naga noqo oo halkeegi la tag marka annaga farxad gooniye bay noo tahay aniga gudoomiyaha gobolka iyo jananka iyo maayarka iyo taliyaha qaybta iyo odayaasha siyaasiyiinta labada gobol ka socdaba iyo dhaqanka labada gobol ka socdaba oo dad badan baan idinku nimid tabliiq nabadeeda Lughaya waxaan kala noqonaynaa farxadii aan degmada xariireed kala kulanay ayaan degmadii Lughaya kala kulanay weyn bay ii tahay inaan tabliiqii nabadda labada iyada gobol Awdal iyo Salal labadooda gudoomiye annagoo matalayna xukuumaddii oo hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi